barnaamijka qubanaha VOA toddobaadkan waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan aan ku bilowna eegadi socodka doorashada Soomaaliya ayaa waxaa mar kale soo wajahaya caqabad iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu dhawaan eriyay guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal waxa uuna ku baaqay in ay madaxda maamulada dalka iyo kuwa dawladda dhexe ay kulan isugu yimaadaan magaalada Muqdisho si looga arinsado caqabadaha hortaagan doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa dhamaystirka doorashooyinka dadka ka faalooda arrimaha Soomaaliyana waxay ka digayaan in arrimaha hadda taagan ee ku saabsan khilaafaadka iyo waliba kala fakar doonaanshaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dawladda federaalka ah inay abuuri karaan caqabado hor leh warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle khubarada ka faallooto siyaasadda iyo hay'adaha cilmi baarista ka sameeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba tilaabadii dhawaan uu qaaday ra'iisul wasaaraha inay keeni karto isbedel ku yimaada hanaanka doorashada gaar ahaan arrinta daafurnaanta oo si weyn dooda u hareynayeen tani markii doorashadu ay ka bilaabatay maamulada qaarkood kiisaska ay qabteen guddiga xalinta khilaafaadka oo dacwadaha laga keenay intooda badan dadkii ku guuleysay u xukmiyeen guddiga waxa laga yaabaa in waxyaabaha la filan karo inay sameeyaan guddiga isbedelkan lagu sameeyay kadib inay tahay kuraasta qaar in habraacyadii loo maray ay diidaan ay dhahaan yani dib loogu noqdo waxyaabaha kale oo ay keeni karto waxa kamid ah hadda midowga musharaxiinta oo kale oo aaminsanaa in doorashada aanay sida ay tahay ku sii socon karin inay hadda aqbalaan ay dhahaan doorashada dib waxbaa laga bedelay habkii wax u socdeen marka doorashadii inay dib u bilaabato ayadana waa suuragal laakiin waxay sidoo kale keeni kartaa hadda in su'aalo ay ka dhex imaadaan guddiyadii doorashada iyo wada shaqayntoodii sababtoo ah habka looga qaaday xilka ayaa dadka qaar ay su'aal ka keenayaan waxaana dhinac kale suuragalay inay dib u dhac ku keento doorashada oo hakad uu ku yimaado gaar ahaan maalmaha isbuucyada soo socda dhawaan ayaa shaqada laga eriyay 7 xubnood oo kamid ah guddiga xalinta khilaafaadka waxaana ku jira gudoomiyihii guddigaasi kadib markii lagu eedeeyay inay ku milmeen siyaasadda loola jeedshay eedeymo culus hanaanka lagu maamulayo doorashada iyo dadka ka faallado siyaasadda su'aal duldhigeen gaar ahaan soo xulidda odayga dhaqanka oo hadda gacanta ugu jirta madaxda maamul goboleedyada runtii habka hadda loo naqshadeeyay doorashada ayaa aad u qariban oo gaar ahaan heshiiskii la galay bishii August ayaa awood badan wuxuu siiyay dowlad goboleedyada gaar ahaan guddiga soo xulaya ergada inay saameyn weyn ku yeeshaan taasoo marka awood u siinaysa inay ay saameyn ku yeeshaan cidda ku soo baxayso kuraasta oo kale habka doorashada oo doorasho dadban oo aad u adag ah ayaa keenaya isjiid badan iyo dagaal badan iyo maaragtay hufnaanta doorashada inay sidii la rabay noqonin laakiin waa habka aan hadda lagu heshiiyay si transitionkan ama doorashadan ay u gabagabowdo laakiin filashadeena waxa waaye in doorashada ay si daba dheeraan doonto kuraasta hartayna qaarkood muranno iyo dacwado badan iyo ay ka dhalaan qaar kamid ah dadka degan magaalada Muqdisho ayaa ka dhiibta aragtidooda la xiriirta doorashada Soomaaliya magacaygu waa Dr. Mawlid Cusmaan Axmed kana tirsan dhalinyarada magaalada Muqdisho wallahi waxaan isleeyahay khilaaf kastoo yimaada waxay noo keenaysaa dib u dhac iyo problem joogto ah wadanka doorashooyin hore ay ugu soo dhaceen sharciga jiray ama dastuurka dalkeena wuxuu noo sheegayaa in 4 sano ee doorasho ay dhacdo haddii marka doorasho ay dhiciyso dhibaatooyin badan oo wadanka dhacaya amni darra ku ka ilaahay dhaqaalihi oo burbur ku dhacayo kambaniyal caalamiga iyo dawlado waaweyn aan heshiis la galnay dawladda Soomaaliya waxa soo dhaw waxay noo keenaysaa burbur haddii doorasho sax ah ee dalka dhiciyso marka waxaan qabnaa hadaan nahay shacabka magaalada Muqdisho baqdin in dhibaatada doorasho la'aanta inay sii kordhayso marka waxaan ku talinaynaa mar walba in wadanka ay ka dhacdo doorasho xur ah oo xalaala si wadanka uu u gaaro hiigsi iyo meelaha fogfog uu hiigsanayo loogana baxo dhibaatada mar walba soo laalaabatay bismillaah magacayga Cabdiraxmaan Cabdidiin waaye والله waxaan isleeyahay Cabdiqaadir doorasho dib u dhacda culayska ay keeni karto qof walba oo qiyaasi kara
culays dhaqaale iyo mid amniba dalka ku keeni karta marka in dalkan doorasho aado si weliba degdega waxa waaye waa aad muhiim u tahay waa suurtagal haddii aysan khilaaf kale oo isku soo kordhinaynin oo ah maaragtay madaxda ugu sarreysa dalka xal inay keeni karto aaday suurtagal u taasaas 24 bishan December ayay ku egtahay jadwalkii la shaaciyay ku xusneed inay ku soo ilaan doonto doorashada aqalka hoose waxaana mar kale muuqanaysa inuu dibdhac ku yimid jadwalka doorashada Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble ayaa maanta casuumad u fidiyay golaha wadatashiga qaran isku yimaadaan Muqdisho 27 bisha December Abdulqaadir Okay qubanaha VOA Muqdisho موسى علي محمد عبد الرزاق محمد طاهر ورسمه عبد الرزاق محمد